بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد ورباهنتا هون ستريم أو كبر أحسن أمانتا إن حلقة الجوهر رئيسي برنامج دافرنا لده أو أتكداون دونتا ورباهنتا هون ستريم عن هالكان كدو بينه برنامج كمانتا وحمرتي يجوا عبد الرحمن روبلو ولا يرى أو قبير لنا صحافة ده ويجوك سومالية ده وحنديرة دساري دونا أنت برنامج كان وصعده قضاء مهم oo ku saabsan Soomaaliya gaar ahaan waxaan ka jawaabi doonaa maareynta marxaladaha kala guurka ah ee Soomaaliya laga soo bilaabatan iyo bilowgii dawladnimada ee Soomaaliya waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa waqtiga hadda la joogo marxaladda kala guurka iyo maareynteeda meesha ugu dambeysana waxaan ka jawaabi doonaa Soomaaliya maxaa ka qaldamay su'aalaha ku soo dhawaada barnaamijka mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aan soo dhaweeyay martida barnaamijka Cabdiraxmaan Rooble ku soo dhawo barnaamijka daafurnaan oo warbaahinta hon stream ay ka daawan doonaan dadka na daawanaya bismillaahir rahmaanir rahiim aad ma santahay Cabdiraxmaan iyo home stream waa ku faraxsanahay in maanta aan marti u ahay oo aan xoogaa ka sheekaysanayno waayaha Soomaaliya iyo waqtiga waxa la joogo maanta la joogo xaadirka aad ugu mahadsantahay soo dhaweyntaada aad iyo aad kaaga mahadcelinahay waqtigaaga iyo inaad barnaamijka nagala qayb gasho Cabdiraxmaan Rooble oo yara maadaama qabiir dhinaca saxaafadana aad tahay waayo joog Soomaaliyeedna aad tahay waxaan rabaa inaan isla falaqeyno mawaadiic muhiim ah oo ku saabsan sooyaalka Soomaaliya maareynta marxaladaha kala guurka ah laakiin intaana taas u galin waxaan rabaa inaad bal ugu yaraan sawir ka bixiso waayahaagii dhalinyaranimada iyo muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim maxadan su'aashaada kaaga jawaabo waayihii dhalinyaranimada inta badan horta waxaan ku soo qaatay qurbe laakiin intii aan Soomaaliya joogay aan soo korayay waxaan dhihi karaa waxaan soo marnay waqti aad iyo aad uga duwan waqtiyada hadda jiro dhalinyarada marxaladda maanta ay ku nool yihiin marxalad ka duwan ayaan soo marnay ka fursado badan lama dhihi karo laakiin ka farxad badan ayaan soo marnay waxaan xasuustaa markii aan dhiganayn dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare waxaa jiray waqtiyo aad u qurux badan oo dhalinyarannimadii maaragtay weli xusuustoodii aysan qofna ka harin marka la barbar dhigo maaragtay nolosha maanta dhalinyarada waxda joogto marka la barbar dhigo waqtigii toddobaatameeyadii horaadkeedii ilaa iyo 80 laga soo gaaray intaan waddanka joogay wax badan lagu kala duwan yahay annaga waqtigan wuxuu ahaa waqti aad u farxad badan kooban leh barnaamijyo taxana ah oo isku taxan oo qofku aanu midna ka boodi karin su'aaladan soo qaato qofka dhalinyarada ama cunuga yarka waxa la geeyay dugsi quraan wuxuu lahaan jiray asxaabta dugsiga wuxuu lahaa asxaabta xaafadda wuxuu lahaa asxaabta iskuulka markii dambe waxaan soo gaarnay asxaabta sportska asxaabuhu way sii fara badnaayeen waxay lahaayeen dadku isku xirnaan iyo maxaa la yiraahdaa iyo nolol wadaag meesha maanta jarkabood ay noqotay xaaladdu qof aadan maaragtay dadka hadda joogo badanaa marxaladihan soo marno kala ma aysan soo marin waa naga technology-ga iyo waxaad la isticmaalayo waa naga albaxnimo marka la dhaho taas qiyaasteeda waxaa iskale in la miisaamiyo u baahanta laakiin aaladaha la isticmaalo iyo technology-ga maanta ay horeysaa dunidu laakiin waqtigeena waxaa jiray safar fara badan dulqaad maanta meesha aad bas u raacaysid bajaaj ama u raacaysid taxi waagaas luga lagu tagi jiray oo dhalinyaradu way firfircoonayeen hadda dhalinyaradu waxaa moodaa caajiskooda inuu badan yahay hamigooda inuu weyn yahay waxqabadkooda inuu yar yahay waagaas waxaad moodaa waxa waddanka yaala inay iska yaraayeen laakiin dadku ay lahaayeen iimaan iyo maaragtay qanaacad aad weyn oo qofku marxaladaha uu marayo aanu marna isku dayin inuu dhaafo ama uu gudbo tusaale haddaan kaaga soo qaatay dhalinyaro badan hadda waxaa jirta social media gashay oo boqolaal kumanaan kun ah oo u maleeya inay yihiin ilbaxdii adduunka laakiin adduunyadu inay bari ka timid inay galbeed ka timid meel u socoto ma yaqaanaan aqoontooda hore ma dhisna ilbaxnimadooda hore ma dhisna qanaacadooda ma dhisna taas ayaa keenaysa annaga waageynay inay ka qurux badnayd
waqtiga hadda dhalinyarada ay nool yihiin waxaan kaga fiicnayn waayo waageenii ma jirin xataa isticmaalka maaragtay nal ma jirin badan ma jirin biyaha tubooyinka oo guryaha ku jira ma jirin telefoon guryaha ma aysan oolin laakiin dadku waagaas jooga waxaad moodaa xoogaa ilbaxnimo aan caadi ahayn waxay ku socdeen jaranjarada nolosha isbedelkeeda uma hamiyi jirin wax ka fog waxay mar walba la heer ahaayeen waqtigeenu laakiin hadda waxaad moodaa dhalinyaro yaryar oo aanba adduunba fahminba oo ka hor imaana wuxuu ku leeyahay aniga caanaan ahay aniga kanaan ah okay maxaa caan ku tahay maxaa qabatay maxaa samaysay waagi hore waqtigeennii waxaa caan ahaa maalan qofka sportska waxaa caan ahaa oo xaafadaha dhan laga yaqiinay waxaa caan ahaa caan laakiin ma ahayn waali ama ahayn tuulooyinka lagama aqoon laakiin dadka xaafadda iyo dadka sportska si fiican u yaqaaneen fanaaniinta waxay ahaayeen dad aad caan u ah wax soo saari jiray sportska dadka sportskooda fiican laakiin hadda caanimada waxay noqotay caanimo aan fahmi la'ahay haddaan barbar dhigo marka xoogaa kaftana waageeni waxaa caan ahaa dadka waalan tusaale kasoo dadkii yaqiina magaalada muqdisho waxaa ka mid a islaan la dhihi jiray isku rara dad badan wuu yaqaano malinaya oo waqtigeygii xiliyadeeda ahaa waxaan jiray nin la dhihi jiray saalax liif oo dadka dhagaxyeyn jiray oday gaaban ahaa waxaa jiray maaragtay shacabdisheelo weyne oo asaguna ceelgaabta ka digrin jiray marka dadkaas caan ahaa marka tusaale markaa barbar dhigo caanimada maanta waxay la mid tahay caanimadii waagaasee la mid okay waayahay si yaroo koobanaad u sheegtay waxaan rabaa يعني xilligaagii dhowr mar badan oo sheekaysanay xilliyada iskuulka dhameynaysay iyo 80kii meelaha yani wax badan oo kamid ah wax xasuusan kartaa dhacdooyin jiray dhacay oo caan ah maxaa ka xasuusataa waqtiyadaada horta koow waxaan ka xasuustaa annagu waxaan dadkii soo hana qaaday ama dugsi hooseba maaragtay soo dhameeyay xilliyadii 70kii ugu horreeyay qaybtii ugu horreysay waxaan xusuus weyn ugu ah مثلا waagaas waxaa jiray dhacdooyin iyo waxyaabo wadanka ka jiray dhinac walba leh haddaan ka soo qaato dhinaca sportska waxaa jiray wadanka waxaa ka jiray 10 kooxood oo waaweyn oo magacyadooda dadka waa wada yaqaaniin aad iyo aad ayaa loogu xiisi jiray aaditaankooda dadka ciyaari jiran waxay ahaayeen dad aad iyo aad u tayeysan u tababaran waxaa ka mid ahaa kooxihii waagaa jiray gaadiidka oo loo yaqiino otobaarka waxaa jiray jenyo oo loo yaqiino LLBB waxaa jiray horseed ciidamada xoogga ahaa laakiin horseed waxaa ka horreeyay waagi hore laba kooxood oo ahaa militariga iyo booliiska oo markii dambe la isku dhihi jiray dirir iyo bakaal markii dambe loo baxshay markii dambe ay midoobeen waxaa jiray kooxdii la dhihi jiray Somali Tax oo warshada balcad ay lahayd jowhar koox ay lahayd waxaa jira koox la dhihi jiray Fiat waxaa jira koox la dhihi jiray waagi dambe soo baxeen waxool waxaa soo baxday oo wasaaradda xanaanada xoolaha ay lahayd waxaa jiray sports ku dhacdo basketballka waxaa jiray intaas oo kooxood volleyballka waxaa jiray intaas oo kooxood table tenniska waxaa jiray intaas oo kooxood tenniska waxaa jiray intaas oo kooxood orodada waxaa jiray intaas oo nooca jiray koox waxaa jiray angel dhihi jiray jirto marka magaaladu waxay ahayd magaalo camiran oo sportska dhinac walba habeenkii waxaa la aadi jiray basketball ama volleyball ama table tennis ama tennis maalinta cad waxaa la aadi jiray sportska footballka la aadi jiray garoonka stadio maaragtay konia wuxuu ahaa kan ugu caansan waagaas dadku waxay lahaayeen time table ama waqti jadwal ay lahaayeen oo qofku markuu galabtii shaqada soo baxo galabtii wuxuu aadi jiray sports habeenkii shalay uu geli jiray ama wuxuu aadi jiray meesha loo qofka raba waxa jiray marxalado badan oo wadanka ka socda xataa dhinaca diinta waxa ka socday masjidka Sheekh Abdul Qaadir waxa ka socday tafsiir oo aan dhihi karo dadkii ka aflaxay maanta waa dadka la dhaho diinta ayaga ardadeedu ayaa maanta Soomaaliya u ah maaragtay culimo u ah waxaa jiray habeenadii waxa lagu fiidsan jiray wax la yiraahdo heesaha hirgalay oo tartanka heesaha oo aad u xiiso badnaa habeen walba jimcaha soo gali jiray qaabka uu sameysnaa live oo ah gobolada laga dhageysanay meel walba laga dhageysanay waxay bulsho
qof walba heerkeedu ugu jira maaha bulshadan maanta wada qasan wada siyaasi wada journalist wada culumo wada maxaa la yiraahdaa oday dhaqameed wax kasmay ma ay messenger dadku waa kala saarnaayeen qof walba shaqadiisa taas ayaa keenaysa marka macaanka nolosha waayahay magaalada saas ah oo nolosha ay ka jirtay sportiska caweyska diinta dhinac kastaba ay ka jireen yaad ka safartay adoo safar waxbarasho aadaya marka waxaan rabaa safarkaagaas oo taxamar ka bilaabanayo ilaa Jarmal ay ku tagi doontay bal isagana waxyaabihii ugu xiisaha badnaa wallahi markaan ka tagay wadanka markaas ayaan secondary ka baxay waxayna ahayd bartamihii dabiiqadii 1980 nin iska dhalinyar oo markaas secondary school ka baxay magaalo ku koray isla markaasna ahaa ciyaartoy ciyaari jiray kubadda miiska kubadda cagtana maaragtay markaas ahaa kooxihii yaryaraha kooxaha hooyinka hooseeyay ka ciyaaray da'duna aysan badnayn markaas hadaan ku yiraahdo waa da' 17 aad u yar laakiin leh khibrad 3 sano u dhiganta maanta 10 sano ama 20 sano u dhiganta oo qofku waagaas waxa jira wax walba oo qofku sameeynayo sameyn jiray wuxuu sii jiray muhiimad gaar ah sii jiray si gaar ah hawsha u qaban jiray si daacad u qaban jiray kubadda marka la ciyaaro waxa loo ciyaari jiray si aan caadi ahayn wax walba waxa loo sameyn jiray si maaragtay tababar sare ah loo sameyn jiray markaan ka tagay wadanka waxaan aaday wadamadaas maaragtay adduunyada hore u martay loo yaqaan wax badan aan tagay in wadankay ka soo tagay maaragtay cilad ahayd laakiin waxaan isku qancin jiray qofka waxa u wanaagsan inuu markuu dhalinyar yahay inuu meelo badan tago adduunyada maaragtay soo arko nolosha adduunka jirto soo fahmo kadib khibrad iyo waay aragnimo uu kula soo noqdo dalkiisa marka aad meel cidla joogtid way ka xanuun badneed waagaas 4 sano ama 5 sano dibadda ku maqnaat way ka xanuun badneed 20 sano oo hadda maqanta laana xusuustii dadkaagii iyo meeshii aad bari jirtay iyo dadkaaga xasuusanay tiin waxay keenaysaa hilow inuu kugu dhaco oo aad u hilowdid dadkaagii waqtiyadii saaxiibada meelaha aad fadhiisan jirtay sheekadii ila u hilowdid marka muddo soo joogo markaan tagayna waxa iga ahayd maaragtay bal dhowr sano maqnaa way soo noqo laakiin way ila tagtay oo waxay gaarsiisay maaragtay inaan soo noqdo ugu horeyn 13 sano ka maqan waxaan soo noqdo xamaroo damay oo noloshu baabaaday oo wax socda aysan jirin dadku guryahaas ka fadhiyo wax shaqo aysan jirin dadka cuntada gadan mooyee wax kale oo shaqo haystay aysan jirin marka waa u imaan doonaa inta maqnayd safarkaaga ku jirtay meelo badan aan martay yani hadaa la barbar dhigta maanta xiligaas kolay baasaboor waxa ku safraysay Soomaaliya maanta hadaa la barbar dhigta adoo baasaboor Soomaaliya ku safraaya say ahayd say isku qabanaysan waagaas adduunyada safarka iska yaraa baasaboorka Soomaaliya helitaankiisa dhib badnaa marka qofka baasaboor helaa safaaradu taga ma jirin waxaan su'aalaadkan faraha badan iyo safaaradahan iyo xujooyinka faraha badan ma jirin qofku warqadu geysana meeshaas u socdaa maxaa u socdaa waa si jiro wax marka waagaas ilaa laga soo gaaray sideetamaadkii dhamaadkoodii dunidu way isu furneed macnaha xoogaa ma ahayn sida maanta wax walba ay culus yihiin ama wax walba ay dhibadeen dhinac kale marka laga fiiriyana waxaa aad u fududaatay waqtigan xaadirka waxaa aad u fududaaday helitaanka iyo safarka uu ka fududaay hore safarka qofka markuu aaday waxay ahayd wax weyn badan dhib badan rafaad hadda waxa way caaw halkan ka tagaya subaxdii London ka quraacanaya galabtu ka soo baxaya subaxda mid ka qadeen ku quraacanaya waxa wax fudud noloshii isbedeshay waayahay mawduucana barnaamijkan rabaa inaan u imaado Soomaaliyada sidaas ah waqti anaga ka dhacay oo kala guur ah oo waqtiyada aad dalka ku soo laaban doonto kamid ah ama ku dhow dawladnimadii meesha ka baxday mawduuca aan rabaa inaan u soo laabano maanta taagana ah yani kala guurkii ugu adkaayaa la sheegaa inay dhacay xilligaas
سيلو ماري مرحلة دولة المدينة أي بحيثي بربرنا لسوق لها أنت حسوسة أرتفع عنتي ومد الصوماليات أيضا معها عدة حبور الناس مرور باب وحاجرة معنا ضد كمذا ومدة كمذا أي واحد سمينا قلط كي أي ومدة ولن عقابنا ناس صالحان رجيم كي أم نظام كي محمد سيد بن عمر هذا كأها قلدات فربضن ولها وناك فربضن ولها لكن waxaan moodaa marba marka ka dambaysa wanaagu inuu si yaraanay oo xumaantu ay badanayso tiin waxa ay keentay dadka ka cariisiiso ummaddu ay kacaan xoogaa la ismaartay ximo dhimasho badan ay dhacdo isbedelka marka waxaa anigu ugu maqaala ah oo aan dad badan ka wareystay in dadku xamar joogto saalahan USC saalahan in ay doonayeen in maxaa yiraahdaa si nabada in lagu kala wareego oo maxamed siyaad barre uu xukunka uga wareego ayadoo maaragtay la maraayo dariiq wada hadal asagana uu wadanka u maaragtay nidaamka wadankan uu sii socdo oo hadhowna doorasho iyo wixii la aadi kale tartiib loo aado maxaa dhacay marka maxaa dhacay runaantii horta waxaa jiro boogo soo bilowday xilligii gobondoonka oo ilaa maanta aan baskool dad baa wax tabanaya waxay tabanayaanna ma yaqaanin qaab u tabanayna ma yaqaanin laakiin weli soo taagan yihiin waxba ka maqan ma fahamti tii waxay keentay maxamed siyaad barre in uu u arko dad qaar oo markaasi dadkii wada hadalka la lahaa kamida inuu cadowga adduunka u arkay waxaana keentay macnaha ficiltanka Soomaalidu ma ogtahay afkaas ayaa dadkii afkaas aan arku geynay ficiltan xoog badan ayaa meesha taagnaa markii loo tago ninkii iska tag liiskii dadkii bedeli lahaa iyo qaabkii markuu arkay oo laba nin ka calaamaysto ninkan ku jiraan baad wadankeeda kaga tagay saxda waxay muujinay ninkii waaga iga sheekeeyay goob jooga ugu yiri haddaan ka tagay labadaas nin maxamed siyaad waxa laga yaabay inuu tanaasul sameeyo laakiin nasiib darro labadii nin ku jira sheekada marka tiin waxay keentay in arrintu meel gaarto raggii waday maaragtay islaaxa ama wanaaga raadinaya odayaasha in qaar dhintaan tii ay sii keentay caro ummadda ay sii kacdo arrintu faraha ay ka baxdo marka isbedelkaas si qaab daran oo ku dhacay ayaa lagu kala tagay waxayna keentay in 10 sano kadib dowlad Soomaaliyeed iyo nidaam oo boqolkiiba 70 isku raacsan yahay in wadanka laga sameeyo laguna soo sameeyo wadan walaalaheena oo daris aan nahay oo Djibouti lagu soo sameeyo selo mari islaayada nidaamka marka la sameeyo waxaad moodaa markii la daalay oo xabad iyo dil iyo boob iyo dhac rag odayaal oo aqli ilaahay siiyay ayaa waxay alifeen in ay arrintan ay tahay laga maarmaan waxayna soo bilaabatay 1993 ayay bilaabeen in ay dadka heshiisiyaan oo ay dadka ka soo bilaabaan waxaan xasuustaa maraan Soomaaliya imid 93 January 94 in lagu qabto xamar shirweyne lagu heshiisinayo xeerihii ku dirsanaa magaalada oo dagaalka xun oo dhaxmaray taasna ay keento xogaa dabac inuu dabac yimaado oo mowqifyadii la kala joogay xogaa ay dabacdo nasiib darro dadkii ka ahaa atoorayaasha filimkii hore ayaa weli sii joogay tiina waxay keentay in la heshiin waayo waxay soo jiitanto maalintii dambe waxaa markii dambe arrintu timid in niman walaalaheena ay ayaguna soo farageliyaan waa faragelintii ugu fiicnadan dhihi karaan inta aqligaygu uu yahay oo ceeb maaha in qof walaal uu ku yimaado oo ku dhexdhexaadiyo tiin waxay ka dhacday Djibouti waxaana arrintaasi maaragtay garwadeena ka ahaa dad aqli badan oo Soomaali ah
ma noo joogin beesha caalam wax la yidhaahdo etoobiya ma joogin inta kastoo etoobiya gadaal naga walaaqaysa beesha caalam gadaal naga walaaqayn laakiin rag caqli leh oo Soomaali ah waxgarada ay arrinta u xidhiidhay waxaana la keenay in Soomaaliya ay iskugu timaado Djibouti 6 bilood ilaa 4 bilood ilaa 6 bilood ay u fadhiyaan arrin marka la rabo in la jaangooyo waqti qaadanay negotiation waxay gelaysaa wax la yiraahdo wada hadal wala ficiltama wala garamaya kartin waxay keenaysaa marka dambe maaragtay natiijo ama maxsuul ay keenaysaa ma halka maanta kuwa isku sheega macaaridka ay degdegayaan waxna aysan meesha ku hayn laakiin hadii wax walba soo dhilin lahaayeen dawladdu soo dhilin meel dhaxal isugu imaanaha oo laga gudbo waayaha dhibka badan ee maanta aan ku jirno marka sagaashan maxaa la yiraahdaa 2000 waxaan sameysnay dawlad ku meel gaar haddana isla markaasna naga kama marnayn meeshii faragelin kale oo ah si kala nala soo galiyay waxa dad ka moogta markay daalaan waxay qaataan heshiis aanay markaasi u arkayeen inay tahay ku meel gaar way nala tagtay barnaamijkii ku meel gaarka 4.5 ka uu nala tagay ummad markii la heshiisiinay waxa laga yaabaa 2 sano 3 sano 4 sano in lagu heshiisiyo wax la yiraahdo isku saami noqdo laakiin markii ay runta tagto ummad markii rabo in la wado kuma xirno فيه بالسامي كسرسي فيه بالسامي كسرعة وقلتها قناعة وقف وقنعين كره مجتمع قف ومدى وذي كرين لها هدور رب إله يغير كيسو أي أسي كل كيسو كجوا سامعي طول لكن قف ودن كوذي كره ومدى ما يشغل رجين كره إن لها تي مدى المرك وحنصار جبنه ونصار كفنه ونصار صعنه وانجبت سومرنا وحمانته تنوح سومرنا وحنلدجي سوماليا ونلدجي وحول قيبسي لحون أنصني سنة أو 4.5 كعسان الحر ونقدر محل هذا ونقرسيو حير كمان تأنجو عدالة ضرر أقوم ضرر إصلاح حساب طبعا ماشي مكان وحكى عكسي ضرر مدام مركي عرفتل وسو سمي دولتي عبد الله يوسف وماضي توبي فرقينتي إنه زايد سينرو وكاني إلا سمي واحد هذا فدرال أو عن به كرو وحواي وعذرك وين دولة من الصومالي كلها أو فدرال أنجرين فدرال كأون دكتاتور أما تكليت ليها هذا حوفر ستان أوكي تسأل عن 4.5 على وضع يكون لجوسه شيء لما كن يأفرتين إسلام مركي وحالاتنا اللي يري فدرال كي 4.5 سي اسكو كلايا سي سولا شقينا ما يصير شقين كلام فدرال كي أرتور أوه waxaa mar walba ku daba socdo oo Soomaaliya daba socday koox la yiraahdo qayb oo xukun oo ay wadaan dad aan danta Soomaaliya dan ugu jiro yaa kamida way badan yihiin waxa ku jira dawlado waxa ku jira shakhsiyaad waxa ku jira daris waxa ku jira cid walba qabiilo Soomaaliya waxa jiro dan ugu jirin in Soomaaliya ay si cadaalad wax ku qaybsato Soomaalidu runtii waxaa jira dad aan marnaba ogolayn in Soomaaliga uu Soomaali kale la mid yahay taasna waxay keentay soo jiitankan u dabacsanaanta wadaha shisheeye qolaa raaliga ah federaalkii oo mila sanaaw u waday oo aad aragtaan maanta Ethiopia maanta meesha ay gaarsiisay qaabka ay ku soo waliba ayaga nooga fiicnaa sababtoo ah waa ummado iyo jinsiyada kala duwan ah haddana qaab darrada maanta uu yeelan waa aragti 4 gobol ama 3 gobol oo Ethiopia kamid ah dagaalaha ka socda waa fansama dadka deganaa ma ogol waxa dhibaatadan ay abuuray tikray abuurtay maanta dhibaatadii ku socota ayadoo ku socota maanta sidaas oo kale Soomaaliya ka socota dadkii jeclaha federaalka hooyada federaalka ama aabiga federaalka ama aadonta ayaga ku socota maanta waxaadna moodaa in jacaylka qofkaas oo u qabay federaalka xanuunkeeda u dhadhamin doono Soomaaliya waxaa dan ugu jirtaa in la wada noolaado qof iyo cod la samaysto
la isdoorto ummaddu ay noqoto ummad xora oo qof walba leh laakiin federaal ku dhisan qabaa'ilo ku dhisan hadda waxaad tusaale soo qaadan ninka jooga Jubbaland hal nin ayaa wax ka go'an dictatorka xun ma jiro hadduu caawa seexdo wuxuu berri lagu sameynaa baarlamaan la wareysanaya ma jiro wasiir la wareysanaya ma jiro marka beesha caalamku waa sheeganaa dhaha Soomaaliya waa maamul goboleedyo ka dhahay ma jiro maamul goboleed dictators meelaha fadhiyo waxayna bedeleen warlords kuwii ahaa hogaamiye kooxeedyada iyo dagaal oogayaasha meeshoodii joogaan dani waa dagaal ooga qorqor waa sidoo kale cali gudlaaw fiiri ilaa waxaa tagtaa axmed madoobe tag dhammaantood marka waxayna farta ku fiiqayaan mid kale isugu yimid oo ah dowladda dhexe oo ayadu la caynaayo la mucaaradaayo wax la dhahay ayaga kuwooda lama mucaaradi karo maanta magaalada Kismaayo haddaad tagto axmed madoobe wuu qaldan yahay xiriir iska dhaafay in lagu dilaa laga yaabo dani waa kaasa ma la dhihi karo qorqor waa kaasa ma qof la dhihi kara ma jiro marka waxaad ogaani marka ujeedada laga lahayaa waxay tahay in nala jajabiyo nala burburiyo nala gaarsiiyo heer ah aan dictatornimada ama kaligatnimada aanu u qaadano sidii aan cabno sidii taaliisho kale waayahay marxalado badan la soo maray 2000 wax la sameeyay federaal ku soo xigay kama sheekeynayno dadka Soomaaliyeed waa ka dharagsan yihiin waxyaabaha ku saabsan waqtigaas waxa ka dawladnimadii casriga ahayd laga soo bilaabay 2000 maanta 26 sano laga joogaa haddaa qiimayso 26 sano maxaa ku muuqda mar laba arrimood baa ay muuqda mar rajo fiican ay muuqato oo ah in la soo koray xoogaa laakiin la daahay cunug maaragtay dhashay oo hadalku ka raagayo fahamku ka raagay aan noqonay walow aan kornay maana 26 jir la noqday laakiin caqligii 26 jir ma lihin waxaan leenahay caqliga 4 sano jir ayaa maanta leenahay weli ma gaarnay 4 sano taasna waxaa caddayn kara hab maamulkeena fiiri isxsaabtan la'aanteena fiiri dowladnimadu waxay tahay marka waxaad moodaaba inaanay nooba iftiin baarlamaankeena fiiri baarlamaan miya baarlamaanka Soomaaliya baarlamaan miya marka qofka Soomaaliga ee u haysta baarlamaan inuu yahay baarlamaan waxaan ay baarlamaan yahay waa hurdaa 4 jir ma gaarin hadda baarlamaan waxaa la yidhaahdaa xisbiyo kala duwan dad kala duwan ay soo doorteen meel la isugu keenay kadib ay doortaan waxa ay rabaan diidan waxa ay rabaan kan laga tirada badan yahay ee baarlamaanka xisbiga laga tirada badan kan tirada badan oo wadanka maamulo kan kale uu soo saar mucaaradkaas meesha ku jira mucaarad dariiqan cunteynayo oo suuq iska wareegaya mucaarad ama dhahay shalay waxa ahaan jiray maxaa la yiraahdaa xil hayn jiray madaxweynaha ahaan jiray ama xirba hayn jiray oo dhahay ninkaas alfaxmaale xataa uma bilaabo waxa kale aad u fiirsaa ragga siyaasiyiinta sheegta Soomaalida badankood fiir ma korin laana ninkaani markiis horeba waqti siyaasi marka lagu leeyahay ama hebel laacib waa marka la leeyahay ama hebel waa fanaan marka la leeyahay macnaheedu waxay tahay waa soo jabay ninkaas laakiin kan siyaasi ma siyaasi waxa la yiraahdaa siyaasi ku sheeg macnaha iska dhaxa asmada oo tusaale sababta su'aasha hore ku weydiiyana waxay ahayd yani waqtiga 26 sano waqti badan wax la soo dhisay waqtiyadii hadda la soo maray dadka qaar waxay u arkaan in waqtigii ugu fiicnaa hadda aan ku jirno dadka qaar ma arkaan si kale u arkaan su'aasha ah dawladnimadii la soo dhisay 26 sano maanta xilligay baabi'i lahayd la joogaa adiga maxay kula tahay wallahi horta hore shay walba wanaag oo dhalanaya wuxuu galaa marxalad adag isbedelka hadda socda ee 26 aan ku jirno 2020 aan ku jirno iyo dawladnimada aan haysan waa marxalad kale oo ka duwan marxaladii hore waayo waxaan soo maray 3 jeer oo madaxweynayaashu ku dhaarteen in ay wadankan hadii ay talada qabtaan in ay doorasho sameynayaan dastuur dhameystiran sameynayaan federaalka dhameystiran intaas waxaa marka muuqda in maxaa la yiraahdaa arrimihii maanta ay soo gaareen bisayl
oo saddexdii xeer doorashadii saddexdii la soo maray oo ugu horreeyay 12kii laga baxay ku-meel gaarkii kii kale ku xiga 17kii iyo kii 22kii ayaa wuxuu ku dadaalay marka nidaamkii soo koray maasha in uu intiba bedelo waxaadna arkay isla markiiba khayla ka timid yaa diidan waxaa diidan dad u arka inay saaxada siyaasadda ka baxay way badan yihiin waxay leeyihiin maaragtay agtara badan ama matalayaal dad u matala oo badan ay leeyihiin waxaa kow ka ah qabiil walba xildhibaanada oo magacooda sheegta ka mid ah cabsi weyn ay qabaan sababtoo haddii baasha dhexda la dhigo xataa la arki maayo mar dambe sababtoo dhalinyaro ka firfircoon ka caqli badanaa jirto waxaa kaloo kugu soo haray ragga maamul goboleedyada xukuma ayagoo waxay ka baxayaan saaxada kuwii maalin madaxweyne noqday asagana wuxuu ka baxaa saaxada sababtoo ah kuma noqon rabitaan umadeed wuxuu ku noqday meel hoola oo dad la isugu soo ururiyey oo ku yimid cadaalad darro ku yimid tiyo madaxweyne ku noqda ama wax madax ku noqda marka maanta ma awoodo inuu mikrafoon qaato oo xaafadda hodan tago oo mikrafoon dhowr halay doorto guryaha garaaco ma laha taas waxay keenaysaa inuu asaga saaxada ka baxo qabaa'ilaa jiro marka soomaaliya wadani ugu jirto in soomaaliya sidan ku jirto soo xulis iyo baarlamaan fawda ah iyo kala dan ugu jirtaa beesha caalamka kuwii diidanaa in laydin dhexdhexaadiyo ummaddan ay hor socoto qolooyinkaasoo dhan marka laysku soo duuro ma rabaan baarlamaan fiican ma rabaan doorasho ma rabaan dastuur dhamaystiran ma rabaan dastuur maxaa ka gala nin maamul goboleed joogo dastuur maxaa ka gala nin beri jaga hayn jirin maxaa ka gala war dastuur iyo sharci la bedelayo iyo sharci la samaynayo waxaa sameeya walow ay qalad tahayba nin baarlamaan ku jira iyo in looga doodo baarlamaan adi salaad waxaa loogu talagalay masaajid iyo meel walba oo nadiifa soo maa masquul baan salaad lagu dukan karaa maya waxa ay wadaan waa taas dastuur waxaa lagu bedelaa baarlamaan dhexdiisa waa in baarlamaankaas loo codeeya baarlamaankaas wuxuu doonaa ahaado asaa la dhaha sharci dejiyo amaano qabiil soomaaliya ka maqan maa jiro loo sameeya amaano iska maqan maadaama saas tahay waa in doorashada ay noqotaa marka wax bedelka baarlamaanka dhexdiisa ay timaado oo la keena maxaa layidhahdaa marxaladihii la marsiinaya laga dooda ka bacdi la ansixiya laakiin nin jooga maxaa la jiray garow jooga oo maamul goboleed ka tira war adaaba keligii taliye marka qofku markii uu isaga lasoo doorto oo si sharci ah ummadda oo dhan ay doorato wuxuu leeyahay awood ka weyn awooddu maanta leeyahay maayna qof dariiqa socda hadduu yidhaahdo aniga dastuurka ma ogoli oo maxaa kaa gala awalba aniga dastuurkii 12kii la sameeyey oo sheekh shariif gadaal kaga saxiixinaya mihigo ku qornaa faroole oo amarka bixinaya ilaahan kugu dhaashay dastuurka waxay ahayd firi caasimada arrinteeda waxaa la geliyay mixna la geliyay qaab doorashada mixna la geliyay baarlamaan in la sameeyo mixna la geliyay macnaha taa ka dhan ee ahayd oo ah in laga dhaqaaqo masaalix gaar ah hadda u fiirso ummad waxaa jirta soomaaliya ka mid aan ogolayn war qof ka weyn ma jiro qof iyo cod oo saxa la sameynaa ma ogolo maya hanaloo qaybsho fiiri hanaloo qaybsho 60kii ilaa haddan ku soconnaa wax natiija ma gaar dagaal buuq rabsho horumar la-aan adduunyadii on ka harnay meelaan joogno on la aqoon marka waxay macnaha arrinta ku wanaagsan tahay dhibka waxaa u aragtaa hanaloo qaybsho anigu arkaa waayo nin hurda iyo nin ordaya arrintan wax u wada qaybisa qabiilka dhexdiisa حتى قبيل كان عزيز اوكي يا قبيل هبل افر قف قري يا قبيل هبل 18 قري ما كان بدنيا ما كيريا لما حساب صلا اوكي انت اصلا ما صامرها بدل ما حكو بدلي nin walba nafta nabi umada qof wax loo qoondeynayo oo meel guula wax loo dhigayo ma jiro baashu dhaxdeeda taala xisbiyaha la samaysan xisbiyada marka la samaysto 275 waxa waaye oo xildhibaan 275 xisbiga dhexdiisa ha ka shiro cid qaabili karta cid qaadan karta cid maaragtay maamuli karta asagoo fiirinaya qabaa'ilada xisbiga naftigiisa kuma shaqeynaya moogtahay iska shaqeey waayo deegaan boqolaal qof ku badan dadkiisa ololeyn kara
ha ku soo baxo qofku 275 aan ku dhisnayn haba yaraatee cid ku dhisnayn markay ummadda mas-uul u noqoto way ka doonaani qaabka maanta aan nahay oo 4.5 ka ah ninka jaga loo dhiibaa waxaa loogu dhiibayaa ma qaban karaa mas-uuliyadda ma wadi karaa ma fulin karaa ma gaara heerkii oo jagadan qaba lahaa hadda waxaa noogu fiirsaa hal nin ma ii sheegi kartaa waa hal ama labo ama saddex way dowladdan dhan aa ujeedid oo alla ilaahay xilka qofkaas uu haayo la dhihi karo 100% wuu qaban karaa wuu ka soo bixi karaa soomaalinimoon u wadi karaa ma jiraa reer walba midana looga soo jeedo oo loo keenay marka maxay keentay tani dhashay marka 26ka waxaa maruna marxalad kala guura maadaama ay kala guur tahay kala guurkan wuxuu ku wanaagsanaa dhexdhexaadiyaal okay yaal dhexdhexaadinaa marka waxa la dhexdhexaadinaa dowladda inuu shacab oo iska socdo waxa la dhexdhexaadinaa ururo xisbiyo iyo dowladda yaa dhexdhexaadinaya yaa go'aanka gaaraya masiirka Soomaaliya dowladdan meesha dhigay ayadoo tii gacanta wax ku haysa laakiin ninkan kale ayaa ka soo safanaya waxa xaqiiqa haddii safkaas laga waayo inta qaybood hadda uu ku sheegayo go'aanka la gaaray inuu noqonaa go'aan soconayn waxa ka mid ah culumo waxa ka mid cid yarban soo dirsadaan waxa ka mid ah ururada bulshada waxa ka mid ah dhalinyarada waxa ka mid ah ardayda waxa ka mid ah haweenka waxa ka mid ah adiga cid kasta oo wadankan wax ka mithali karta intaas marka la isu keeno kuwan hadda sheeganaya naftirkooda ee ka dhacay siyaasadda ka haray ee hadda rabeen dib noogu soo noqdaan meelaha ku soo saftaan xisbiga soo noqdaan tusaale meesha u socda hadda meesha waa urur siyaasadda diiwaan gashan oo doorashooyinkii ama gobolka Banaadir ka dhacay ama koonfur galbeed ka dhacay ama kuwa hadda la qaban qaadanaya ama kuwaasna ka qayb qaatay kuwaana raba inuu ka qayb galo urur siyaasadda diiwaan gashan ah iyo urur siyaasadeed aan diiwaan gashanayn labadooda kee mucaarad noqon kara mucaarad sax waxa xisbiyadii ka qayb galay doorashada ee isdiiwaan galiyay ee maaragtay talaabadii la qaaday dhinacooda ka qaaday kuwaas ayaa mucaarad dhihi kara waxay soo jeediyaan waa wax la dhihi kara alla ilaahay waa meel mar sababtoo ah dad fara badan ayaa ku xiran codna way heli karaan laakiin waxa ay sheegtaa kuwa jasiiro ku xariisan cid ay cod ka helayaan cid soo doorat iyo cid ay mathalayaan marka waxa way dhalinyaro magaalada joogta lacag kala dirto tirada kaalay iyo imaada taas doorasho ma waxa la rabaa in leedahay xisbigaagu dad ku jiraan dadkaasuna ay ka qayb galaan doorasho nooc kasta oo wadanka ka dhacdo haddaa fadhiisatid oo diidid oo laakiin doorashada ay dhacdo hadda waa ku qasbanta sax marka ururada maaragtay dhisan hadda ee diiwaan gasha aan waxaan qabaa kuwii ka qayb galay kuwaas ayaa rajo fiican leh kuwaas mucaarad waayahay markaa fiirisid hadda waqtiyada lagu jiro oo يعني markastoo dawladda muddo xileedkeedu dhamaado ama mandate-ka loogu talagalay uu gabaabsi yahay waxa bilaabata qaylo dawladda fursad looma siiyo inay ayadu maarayso waqtiga kala guurka ama ay qorshe u keento ama sida qofka xukunka jooga uu markaas leeyahay sidana Soomaaliya ku haboon oo dad badan laga la tashanayo in lagu meel mariyo lama sameeyo qayla bilaabata maxaa u sababa in farqaha la isku dhawo 4 sano kasta u sababa reerka Soomaaliya leeyahay waa loo qaabiyay labadii kun ka dambeeyay arrinkaas loo qaabiyay in markii ninka madaxda 2 sano uu joogo la bilaabo halaga hadlo halaga doodo way fiicanta meeqa sano soo dooday meeqa sano soo hadlay marka waxay iska noqotay caado in meel la isugu yimaado oo dawladdan waqtigeedu wuxuu dhamaanaa 15 milyan oo dhamaana hebel majooga ma ku aqoonsanin adigu yaa taa marka wax aqoonsanaysa waxa iska noqotay caado soo noqnoqotay aad u foolxun waa dadan dawladnimadu waxa ka aqoon waxa la rabaa haddii rabto dawladdan la maaragtay la tartantid qaladaadkeeda saxdid dadka tustid aad rabtid shaqo badan ka horeysa oo ah adoo degan oon murmin xisbigaaga nidaami u sameey sharciyo
kabacdi dowladda si wanaagsan ula dood waxaa laga yaabaa dowladda oo isdhahaysa maanta adaa wadankii maaragtay heli doono doorashada heli doono inaad ka qaadid sababta uga qaadaysan waxay tahay habdhaqankaaga soo wanaagsanaanayo laakiin qaabka oo loo dhaqmay hadda oo cayda ama waxbaan samaynaynaa iyo midda kale oo muhiimka waxay tahay banaanbaxa ereyga la dhaho banaanbaxa horta inay soo bartaan midkood meel iga xir midkood waa midkood oo banaanbax wax ka yaqaana male weligoodna banaanbax ma ka qaybgelin sabab banaanbax lagu taageeraya siyaad barna kama qaybgelin siyaad bar wax lagu ridayna kama qaybgelin wax bad la isku ciirsanayo mudaharaad dibadda ah oo weyn oo ummaddu isu timaado looga soo horjeedo dowladda kama aysan qaybgelin sooma baran ma oga meel ku dhamaanaysa mudaharaad macnihiisa horta waa la soo bartaa aan dhaho kooxda jaziiro ha soo bartaan ha soo akhriyaan nidaam la yiraahdo banaanbax macnihiis maxaa waaye waa dad oo u soo baxa arrin maaragtay ay ka gubteen ama ay ka cawanayaan oo ay rabaan in ay kala hadlaan dowladda marka adiga miyaa ninka kala hadlay adiga guriga dumiyey ninka guriga laga dumiyey ama guriga dhahay guriga iga maqan ama dhulaa laga haysta dhahay ninkaas xaq u leh hadduu dhawaaqo soo mudaharaadahay dowladdu waxba dhibaataa iskuma qabaan sababtoo ah waxaa dhici lahayd si nadiif oo mudaharaado codsigiisana u gudbiso waana la dhegeysanaa waxaa jira shakhsiyaad mudaharaadaan jiro Soomaalida wuxuu yaqaan mudaharaad tabeel la qaato la ortamaya waxaa xasuustaa ninaan mudaharaaday kaligiis gurigiisa maar si sharci darro ah looga burburay 5 daqiiqo kadib dowladda iyo madaxweynuhu ka soo jawaabay 5 daqiiqo kadib in masaajid imaamka ah ayaa gurigiisa maxuu qabtay press conference oo qabtay waa cawday warana dhulkaan iskale warana saan war madaxweynaha war dowladda kaasa banaanbax la dhahaa macnaha waxa u soo banaanbaxay oo dadkaas dariiqas ka socda uga soo baxay in uu sheegto wixii ka maqnaa asaga una gudbiyo ciddii gacanta ku haysa waa soo gabagabay doonaa maadaama waqtiga kala guurka ujeedkeenu ahaa sida hadda wax loo maaraynayo see kula muuqata adiga ama dowladda ha ahaato ama dhinacyada dowladda ka soo horjeeda mucaaradnimada sheeganaya ha ahaadaan see kula muuqdaa wax la maaraynayo horta runtii ani markaan sii qiyaaso waxaan moodaa weli wadda mugdi ah lagu socdo mucaaradkuna ma haystaan ama kuwa sheeganaya ma haystaan ama ummadda waxaa laga rabo waxay tahay in lala imaado qaab doorasho oo sax ah oo ummaddan lagu badbaadin lama rabo 4.5 dib loogu noqdo waxaadna moodaa dowladda hadda xasan sheekh madaxda ka yahay inay noo wado wax lagu magacaabo qof iyo cod laakiin 4.5 isma qabtaan isma qaban karaan islama socon karaan waxaa waaye biyo iyo saliidoo kale daa isku qasmayaan saasoo kale waa markaa ogaata dowladdu nidaam doorashada ay wado ma aha tii saxda ah mana sii socon doonto sababtoo haddii 4 sano kale ama 5 sano kale nidaamkaas lagu daro waxaa meesha ka baxayo isla xisaabtan waxaa meesha ka baxayo dowladnimadii dhismi saxda ahayd waxaa meesha ka baxayo maaragtay inuu qofkii Soomaaliga Soomaaliga ee mas'uulka ka noqonayo maaragtay wadanka midkii saxda ah leelo wixii ayaa meesha ka baxayo baarlamaan ka doodayo maaragtay ummadda Soomaaliyeed danahooda ka doodayo meesha waxaa weli ku soo noqonayo isla xisaabtan la'aantii xulasho xumadii maamul xumadii dowladnimo xumadii meesha ku soo noqonayso taasna ma aha wax wanaagsan marka dowladda hadda jirto maaragtay waqtiga 1 sano loogu daray waxaa laga rabaa inay la timaado barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore ilaa waqti dheer ay qaadataa 3 sano qaadataa 2 sano qaadataa 4 sano qaadataa waa in la helaa doorasho sax ah oo xisbi walba uu tartamo ciddi ka mid noqonaysa xisbigaas oo wax la wadaagayso ama xildhibaan soo noqonaysa ma rabo inaan xildhibaan gooni
aan yeesho oo reerkayga aan yeesho mar raba aniga waxaan rabaa inaan yeesho xildhibaan Soomaaliyeed aan codkayga siiyo oo ninkaas deegaan matalaya meel matalaya xamaran deganahay aniga xaafadda waa bariyan deganahay nin inuu ka soo baxo ilaahay cid doono u noqdo aan u hubo oon u arkay iyo qudbeeyey isoo hordhigay xisbigiisa iyo waxa uu qabanay soo hordhigay ninkaasaan rabaa maahina ma rabo waxaa ka timid gurceela ka timid dhusmareeba ka timid ama waxaa ka timid maxal jira gaalkacya ka timid halkaas waa degaan doorashada waxaas waa ceeb dowladnimana ma aha reer macnaha midda muhiimka waxay tahay qodobkaas waa in dib loogu dhaqdaa waa in qofkii tabar leh uu soo baxa maxay tahay maaragtay mar walbaba maya qof walba wuxuu kula degaan doorashadeedii aada waaba nala qabadsiiyaba waryaab qore reerka bil afar loo qoro reerkaas afar inuusan lahaana badhici kartaba uusan xaqba u lahayn afar inuu helo inuu xaq u lahayn waxaa ku filan reerka waxaa ku filan inay cadaalad helaan maanta maxay ku haystaan sheeg afar haystaan shan haystaan maxay ku haystaan marka in runta loo soo noqdo arrinkaas waxaan qabaa in barnaamij gaara laga sameeyo qaabka doorashada nooca la rabo see loo doortaa adduunyada see isu doorataa waxaas inaan ka hadlo laakiin qoladan ayagu dhahayo dowladda waa saan iyo kan dhahayn waxaa laga rabaa inay la yimaadaan barnaamij habaysan isku dubaridan oo ay ummadda ka geli karaan ummadduna waxbay ku darsaneen waxaan rabaa inaan kusoo gabagabayna hal su'aal oo u baahnaan doonta in si aad loo faahfaahiyo laakiin aan rabo inaan si yaro kooban aad ugu soo gabagabayso lixdankii aan xornimo qaadanay dowladnimadeena soo bilaabatay 2026 aa la maraya maanta Soomaaliya hadda fiirisid maxaa ka qaldamay si kooban Soomaaliya waxaa ka qaldamay horta qaabka qaladka uu ku imaado waxaa ka mid ah markaa kaligaa tahay haddaa qaldanto waa lagu sixi karaa waxaa la ogaan karaa wax kaa qaldan mugta haddii laakiin jinni kugu jira kawar oo lagu heliyo lixdankii markii xornimada la qaadanaya qabaa'ilo Soomaaliyeed qaylinaya oo lahaa waa laga badan yahay sidaa daraaddeed waa in maaragtay Talyaaniga intuusan bixin dastuur oo lasoo maaragtay jajuubay oo dhinac walba laga soo xiray ee la sameeyaa kuraasta oo doorashada ayaa degmooyinka loo qaybiya xataa markaa fiirisid tiro kuma dhisnayn waxay ku dhisnayd magaalooyinkii Talyaaniga laga taageersanaa ama aan looga soo bilaan bixin ama dhibaato ka imaan kuraasta loo bedelay waxaa lagu yareeyay magaalooyinkii ay ku badnaayeen dadka ka soo horjeeda dadka Talyaaniga waa iska qaadanay maxay keentay waa marka in sport horta mid ay ku fiicnaa laakiin nin reer hebel wuxuu ka soo geli jiray magaalo kale oo dadkiisu aysan degin marka la fiiriyo sooke waa fiicanta laakiin yaa saa u qaybiyey yaa noo qaybiyey lixdankii Cabdullaahi Ciise markii uu ra'iisul wasaarenimada ka degayay dowladda Soomaaliya dhisay maalintaas cudurka nagu dhacay qaa'inimadii nagu dhacday ilaa yoomana hada hadday muuqataa maalintaas wax qaldameen ilaa maanta ay muuqataa wadanka wuxuu ahaa markaas fiiri haddaan dib u noqono inuu wadanka madaxweyne ka noqdo Cabdullaahi Ciise inuu ra'iisul wasaare ka noqdo Maxamed Ibrahim Cigaal xukunka iyo dadkii ka yimid waqooyina si nidaamsan wax loo qaybsado ay ahayd maxaa dhacay weligaa ogow haddaa qof qayaantid adiga dhexdaadana isqayaanaysa qayaanadii lagu sameeyey reer waqooyi waxay ka dhex qaraxday koonfur ilaa ay hadda kooxaa jirta hadda Farol oo kale wuxuu matalayaa kooxdii weligood wax qasiisay oo ahayd siduu meel u tabanayo wuxuu tabanaya umaleyn waa lagaa tiri badan yahay miyaa ma aqaan waa lagaa cilmi badan yahay miyaa ma aqaan waxbuu tabanaya marka kooxda weliba waxaa u badan Soomaali markii la yidhaahdo Puntland dad badan oo qiimo laha ku jiro laakiin waxaa moodaa siyaasadooda markaa fiirisid ma yimshi kalaamulil ma yimshi fi nahar waa inay indhaha furaan Soomaali haddii laga cod badan yahay waa laga cod badan yahay macnaheedu ma aha doorasho qof iyo cod oo saxiix marka la galo macnaheedu ma aha qabiilkaaga laga badan yahay ma aniga waxa laga yaabaa markaan doorasho galo oo codka bixinayo reer hebel siile ma dhahay xisbi hebel siile ha ku batan reerkayga daraba qofka aan siinayna qof aan aqaano oo aan qancay waxa uu wato ayaan siinaya codka marka taas ma bala garan karo cidda badan iyo cidda maqan marka nasiibkiina waa helaysiina
iimaan darrada joojiya dadow. waayahay aad baad umahadsan tahay. wuxuu cabdiraxmaan Rooble Odayeere oo barnaamijkii ugu horreeyay ee daahfurnaan oo aan kasii daynayno Honestream marti igu ahaa. intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeena maanta. inta barnaamijyo kale aan ku kulmi doono nabadgelyo.